kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka danan qodobada aad ku daawan doontaan kuwooda ugu doorka rano waxa kamid ah ciidamada booliska Soomaaliya oo dil lala damacsanaa ka badbaadiyay mid kamid ah agaasimayaasha wasaaradda waxbarashada waa kuma agaasimahaasi maanta ciidamada booliska ay ka badbaadiyeen dil ay la damacsanaayeen rakuuba isna bistoolado laamaha booliska Soomaaliya waxay ka yiraahdaan weerarkaasi gacanta ma lagu soo dhigay ragii ee ka dambeeyay weerarkaasi faahfaahin buuxda oo arintaasi ku saabsan warkayaga ayaad ku daawan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal xooggan oo maanta ciidamada dawladda iyo al-shabaab ku dhexmaray degmada Qoryooley asaraha dagaalkaasi sababay intee la egyahay waa sidee xaaladii ugu dambeeyay ee degmada Qoryooley faahfaahin buuxda oo arintaasi la xiriirta warkayaga ayaan idinku haynaa qaar ka mid ah musharaxiinta Jubbaland oo ka jawaabay dalabkii wakiilka qaramada midoobay waxay tahay dalabka wakiilka qaramada midoobay amuur arintaasi ku saabsan warkayaga ayaad ku daawan doontaan intaas waa qodobadii ugu door corona warkayaga daawade haddii uu kugu cusub yahay channelkan like saar subscribe ku aado si aad u hesho warkayaga dhammaystiran haatana ku soo dhawaada warkii oo fidsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa dil lala damacsanaa ka badbaadiyay mid kamid ah agaasimayaasha wasaaradda waxbarashada ciidamada booliska dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir waxa ay dil ka badbaadiyeen agaasimaha howlaha wasaaradda waxbarashada Mudane Cabdi Garre oo halkaasi ku sugnaa isla maanta ciidamada ayaa waxa uu suurta gashay in dilkaasi ay ka badbaadiyaan agaasimaha iyadoona halkaasi uu dagaal xooggan ku dhexmaray saddex nin iyo qof haween ah oo la socotay oo doonayay inay dilaan agaasimaha ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya laanta booliska ayaa waxa uu suurta gashay in halkaasi ay ku dilaan saddexdii nin ee bistooladaha ku hubaysnaa iyo qof haween ah oo iyadana uu siday hub wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan sida aanu ka soo xiganay taliya ku xigeenka booliska Soomaaliya Sakiya in ciidamada ay ku guuleysteen hawshaasi iyadoona sidoo kale sheegtay in ciidamada booliska Soomaaliya ay sii wadi doonaan howlgallada iyo waliba sugidda amniga caasimadda ee magaalada Muqdisho ciidamada booliska Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyayba waxay hawlo ka wadeen amni xaqiijina gudaha magaalada Muqdisho falkani ayaa waxa uu noqonayaa fal ay si weyn ugu riyaaqeen bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir iyadoona maanta ciidamada booliska si weyn ay u soo bandhigeen awoodooda ku saabsan xagga sugidda amniga ee caasimadda magaalada Muqdisho arintani ayaa waxa ay aad oo la yaabeen bulshadii halkaasi ku dhaqneed sida ciidamada degdega ay uga jawaabeen dalabka sidoo kale ciidamada booliska Soomaaliya sida ay sheegtay taliya ku xigeenka booliska Zakiya ayaa waxa sidoo kale ay ku nuuxnuuxsatay inay sii wadayaan joogtayna doonaan sugidda iyo waliba ilaalinta mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xooggan oo maanta ciidamada dawladda iyo al-shabaab ku dhexmaray degmada Qoryooley wararka aynu ka helino degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in maanta barqanimadii halkaasi uu dagaal xooggan ku dhexmaray ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan degmada Qoryooley iyo dagaalyahanada al-shabaab dagaalka ayaa sida wararku ay sheegayaan waxa uu ku bilowday markii kolonyo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ka baxay degmada Qoryooley ay rabeen inay gaaraan meel duleedka ka ah degmada Qoryooley halkaas oo fariisin u ah ciidamada dawladda ay dhexda u galeen dagaalyahanada al-shabaab wararka intaasi waxa ay ku darayaan inuu ahaa mid xooggan iyadoona hubka la isu adeegsaday laga maqlayay qaybo badan oo kamid ah gobolka Shabeellada Hoose xiriir kala duwan oo aan la sameynay saraakiisha ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee kuna sugan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa aad uga gaabsaday inay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyaan inta uu leeyahay khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay iyadoona dadka deegaanka ay noo sheegeen in dagaalkaasi uu sababay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac walow ay adag tahay in si rasmi ah loo helo khasaaraha inta uu leeyahay sidoo kale dagaalyahanada al-shabaab ayaan wali ka hadlin dagaalkaasi dagaalkani ayaa waxa uu imaanayaa
maalmo un kadib markii dagaal xoogan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dagaalyahanada Al-Shabaab oo ku dhaxmaray qayb ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo muddooyinkii dambaba ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka sheeganayeen guulo weyn iyadoo sidoo kale dadka deegaanka ay sheegayaan in muddooyinkii dambe dagaalada u dhaxeeyay dagaalyahanada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda uu isbedel weyn ka muuqday iyadoo ciidamada dowladda ay u muuqdeen kuwa aad uga itaalroon dagaalyahanada Al-Shabaab waxa wali kacsan xaaladda degmada Qoryooley iyo nawaaxigeeda iyadoo wali ay halkaasi ka socdaan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ay ka wadaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalyahanada Al-Shabaab oo aan ka fogeyn isla deegaanka qaar ka mid ah musharaxiinta Jubbaland ayaa ka jawaabay dalabkii wakiilka qaramada midoobay wararka inaga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland ayaa sheegaya in maanta magaalada Kismaayo wali laga dareemayo xaalad kacsanaan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo halkaasi siyaasadeed ay ka wadaan musharaxiinta isbedel doonka ee ku sugan magaalada Kismaayo iyo maamulka waqtigiisu idlaaday ee Jubbaland sidoo kale war-saxaafadeed ayaa waxaa soo saaray musharaxiinta taabacsan hogaamiyaha maamulka Jubbaland iskana diiwaangeliyay guddiga doorashooyinka oo hore u magacaabay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe musharaxiintaasi ayaa waxay sheegeen inay aad uga xun yihiin dalabka wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan oo ku dalbaday in dib loo furo diiwaangelinta musharaxiinta doonaya inay ka qayb qaataan madaxtinimada maamulka Jubbaland musharaxiintani ayaa waxa ay ku tilmaameen in arrintaasi ay tahay arrin aad looga xun yahay diiwaangelintuna ay hore u dhacday haddana ay rabaan inay geliyaan musharaxiin hor leh oo ay la rabaan talada maamulka Jubbaland arrintani iyo waliba qoraalkani ka soo baxay musharaxiinta taabacsan hogaamiyaha maamulka Jubbaland ee iska diiwaangeliyay guddigii hore u doortay ayaa waxa sidoo kale waxgaradka ku dhaqan deegaanada Jubbaland iyo musharaxiinta isbedel doonka waxay u arkaan in musharaxiintani ay yihiin kuwa maqaar saara oo Axmed Madoobe uu doonayo inuu yiraahdo musharaxiin ayaa ila tartamay oo qura aysan ahayn kuwa awood u leh in ay hantaan kursiga madaxtinimo ee maamulkaasi sida ka muuqato musharaxiintani ma jiro dad si weyn looga yaqaano siyaasadda deegaanada Jubbaland iyo haddii ahaan lahayd dowladda dhexe waxa kaliya ee ka dhex muuqanaya xubno isaga aad ugu dhow oo awood u lahayn hanashada xilka madaxtinimo ee maamulka Jubbaland dhanka kale musharaxiinta isbedel doonka ee maamulka Jubbaland ayaa wakiilka qaramada midoobay James Iswaan kulana shalay dhexmaray waxa ay u sheegeen qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen in dib loo xulo guddi doorasho oo loo dhan yahay haddii ahaan lahayn maamulka waqtigiisu idlaaday iyo musharaxiinta isbedel doonkaaba sidoo kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya wasaaraddeeda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ay si toos ah ula wareegto doorashada madaxtinimo ee maamulka Jubbaland iyo in sidoo kale xildhibaanada guddiga oo hore u magacaabay hogaamiye Axmed Madoobe aysan ahayn kuwa sharci ah sidaas darteedna la kala diro qodobadaasi ay hordhigeen musharaxiinta isbedel doonka maamulka Jubbaland wakiilka qaramada midoobay ma ahayn kuwa uu si rasmi ah uga wada jawaabay isagoona sheegay in hanaanka doorasho ee maamulka Jubbaland uu ku dhici doono mid xor iyo xalaal ah daawadayaal guud ahaan warkii waa naga inta